السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايدن سلام أصحابتكم حنا عبدول تي في ميل والبا دنيا كجوجتين وصاحبكين عبد الرحمن ويدن دحay soo dhawaada new day new video. maanta waxaa idin wadaa hees cusub reaction aan ka soo bixin rabo. heesta waxaa soo qaadanay Zayre Nayrus sahoos ka soo aragteen heestana waxaa la dhahaa magaceeda aabo oo aabayaasha loo soo qaaday. waxaa aragnay heesa badan oo hooyooyinka loo soo qaaday, marka ani ahaan waa mid igu horreysay hees aaba loo soo qaaday. laga yaabaa inay jirto, laakiin aniga waa mid igu horreysay aan arko hees Soomaali ah oo aaba loo soo qaaday. marka intaan u gudagelin reaction-ka waxaan ka codsanahay hadaan nagu cusubtaa fadlan nagu soo bir oo team Abdul ka mid noqo. hadaan noogu xiran tahayna waa kaaga mahad celinaya sida quruxda badan noogu xiran tahay. waxaan ku leeyahay mahadsanid. okay, marka heesta aabo koleba waa hees xalay soo baxday, hees aad u macaan. ana waa soo dhageystay, markaan isla dhageysano reaction aan ka bixinayna wixii aan isla dhihi karnana waa isla arkayna sooma. marka let's watch. okay, marka waatana heestaan isla fiirsano. intaan hilmaamin heesta ayadoo dhammaystiran waxay taalaa Tusma Films ka soo fiirsa xagga. erayada Xawa Cabdullaahi, laxanka Faysal, musica Digaale, kamerada Super Ozil. halkaan aan ka salaamaya. maxaad ii dhaga nugulaatay dhismaha nolosheeda taabtay. aabaheed bay ka hadlaysaa. saa hore idinkugu sheegay heesta waa hees aaba loo soo qaaday. marka heesa badan oo hooyo loo soo qaaday way jiraan. dadka u soo qaadana khayr allah si waxa waa hooyo waxa la heli kara ma aha. marka aabana sidoo kale aabana in la ilaawo miya maya aabana lama ilaawi karo isagana. marka waa laakiin heesta igu horreysay aniga aan arko qof Soomaali oo aabo u soo qaado. marka waxa waa very interesting. marka si dhageysan. anoo caruur ah maxaad i dareeyay, maxaad dhabanka i saartay, dhabanka i salaaxday. haye makeup salon maxaad ii dhaga nuglaatay dhismaha nolosheeda taabtay. waxaa ognahay gabdhaha aabooyinka waan garanaynaa. gabdhaha markay ku ordaan aabo waxaana rabaa waxa wiil markuu ku ordo waryaa socoriga iga baxaa lee. laakiin gabadha markay aabo u tagto waxa waa xitaa duhurda ay soo kiciso wax alle waxay rabto siinaa. marka waana mid fiican gabdhaha in loo jilicsanaado. aniga waxa waa 100% waa qabaa. صح. هاي maxaad dhabtay saartay, maxaan dhabarka igu qaaday, maxaan dheeftaada quutay. macnaha waxay ka sheekeynaysaa faa'iidooyinka uu aabaha leeyahay. macnaha waxay ka sheekeynaysaa aabaheed wuxuu u sameeyay, laakiin in general waxay ka hadlaysaa ilmaha aabaha leh, especially gabdhaha ah, faa'iidooyinka uu u leeyahay aabaha ama tiir dhaxaad inuu ka qaato, tiir xoog leh uu u yahay nolosha gabdhaha aabayaasheena u yihiin. maxaan lafahaaga dhuuxay bay leedahay. waa sax. haye haye lafahaaga maxaan dhuuxay. dhiigaaga maxaan ku naaxay, maxaad dhaxan iga dugsiisay. maxaad dhibaatooyinka macnaha markay imaan rabaan aad hoosta soo gashato aad ii difaacdo. waa dhaxanta macnaha qofka ka celiyo. jaakatan camal ama fanaanad inaad xirato keliya maaha, qofka ku koolkooliyo oo ku hayo oo dhibaatooyinka ka ilaaliyo laftirkiisa waa qof dhaxan ka celiyo. haye haye si maxaad dhib oo dhan iga ilaalisa si aan dhaqso ugu baraaro. haye
I mean kee waaye ama aabbahe waaye aabbaha aan gabadhiisa intaas u sameynaynin runtii mid khayru mas-uul way iska jiraan laakiin 99% waxa waaye gabdhaha in dhinacan midig lasoo istaajisto wiilashana dhinacan bidix macnaha in wiilasha la sii daayo maaha ayagana in lasoo dhaweysto aabbaha markuu ilmihiisa ku dhex jiro oo u sheekeeyo oo la hadlo oo saaxiib la noqdo ayuu si fiican u korin karaa laakiin haddaad darbaaxa dhac ku siiso oo gabadhii wiilka aadan kala saarin gabdhaha mar walba waxay u baahan yihiin il gooni ah in si gooni gacanta loogu raaraciyo naxariis gooni loo muujiyo taas macnaheeda maaha inaan wiilka loo naxariisanin laakiin gabdhaha mar walba in tension gooni ah la siiyaa fiican lala saaxiibo naxariis gooni loo sameeyo way jilicsan yihiin hawsha gurigan ayaga ahay wiil balooni markuu soo ciyaarayo gabadha alaabtay dhaqaysaa cuntay karinaysaa wiil ma sameynaa intaas aabaheeda koob shax u geynaysaa casarkii subax markuu soo kaco u sameynaysaa marka il gooni in lagu fiiriyaa aniga qabaa waana fiican tahay noo sii wada marka maxaad dhibaato dhex martay markaan dhaqaaqayo istaagay socod baradka maxaad dhaaxa i tilmaamtay maxaad wax badan iga sheekaysay haye markaan dhaqaaqayo istaagay maxaad dhaaxa i tilmaamtay oo wax badan ka sheekaysay alla gabadhi waa ii socotay gabadhi waa ii weynaatay haye macnaha wuu ku faraxsan yahay aabbaha nadiira nayruus maxaad waxbarashada igu dhinac istaagtay waxaan qeyrkay ku dhaafo maxaad igu dhiiragelisay waa sax aabo gabdhaha facaan dhaaf hooyo gabdhaha facaan dhaaf waa la dhahaa gabdhaha sooma waa la dhiirageliyaa macnaha waxay ka sheekeynaysaa wanaagga ee aabbaheed uu u sameeyey marka noo sii wada aabbayaashoo dhan halkaanaan ka salaamayaa qof walbo aabba ah da'da doonta jir sax dhaafo maxaad haye aabbow maxaad i dhoortay oo ii dhabar adeegtay maxaad muddo badan sugaysay dhamaystirka ayayga mustaqbalkayga inaad dhisto maxaa waqti badan sugaysay صح هيا صح يا هيجا hadday tabartii yaraatay dhaayaha aragii yaraado haye inaan dhaqaalo iyo garab ku siiyo ayaad mudan tahay aaboweleeda xaqaaga ma dhammaanayo allow dambigaaga dhaaf aabow waaw dambigaaga dhaaf okay marka halkaan aan ku ekeenayaa heesta waxa way halkaan ku eg tahay waxaan rajeynayaa inaad ka heshaan waa hees aad u fiican ana horta sideeda waa ku heestaa heesaha waalidiinta loo soo qaado been idin ma sheegayo halkaas madaxa ii saarayiin waalid hees loo soo qaado waxa waa wataa noocay doonta ahaato aabaha loo soo qaado hooyaha loo soo qaado xitaa walaalaha heesay isu qaadaan aad baan u wataa mar walbo waxa way calankooda aniga ii taagan marka kale waxaan leeyahay maalinka idin wanaagsanaado hadda Abdul TV ku cusubta fadlan nagu soo bir hadda nagu macnaha nala joogto team Abdullah kamid tahay ma kaaga mahad celinaya sida quruxda badan oo nala joogto maalinka idin wanaagsanaado see you in the next video bye bye